daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo idinka diyaarinay waxbarashada deegaanadani. Waxbarashada ayaa waxay tahay muhiimadda ugu sarreysa in ay dadku waxbartaan helaan aqoon ku filan si ay uga maarmaan jahliga iyo aqoon la'aanta. Daba maraanu socdaal ku tagnay deegaano fara badan ayaanu waxaanu idiin soo gudbin doonaa haddii alla idmo toddobaadada soo socda barnaamijyo taxanaha aynu ku eegi doono heerarka dugsiyada waxbarasho ee deegaanadani. Barnaamijkeenan ayaanu waxaanu ku soo qaadan doonaa magaalada Tuulo-Samakaab. Tuulo-Samakaab waxay ku taallaa laamiga waxa ayna laascaanood ka xigtaa dhanka galbeed. Halkani waxaa dhigta arday aad u fara badan oo iyagu ka soo xarooda miyiga. Dadku xooluhu ay ka dhammaadeen ha yeeshee waxaa iskuulkani uu yahay mid aad u da'yar marka loo eego iskuullada deegaanadani ka jira. Waxa uu leeyahay nidaam xagga iskuulaadka ah sida uu noo sheegay maamulaha iskuulkaasi. Balse dhibaatooyin iyo caqabada ayaa jira carruurta halkaasi wax ka barata oo dhibaatada ugu faraha badan ay tahay in uusan iskuulku lahayn deyr. Iyadoo haatan lagu jiro xilligii abaarta ayaa iskuulka waxaa dhibaato ba'an ku haysa biyo la'aan fara badan ay carruurtu ka cabanayaan. Waxa uu noo sheegay maamulaha iskuulkaasi in iskuulkani dayaca ugu faraha badan haysta uu yahay in isagoo aan deyr lahayn ardaydana la xakamayn karin xilliyada ay ku jiraan fasaxa iyadoo dayac fara badan uu ka yimaado dhisma. Sidoo kale wuxuu sheegay in iskuulkani dhismihiisu aad u yar yahay tirada ardayda dhigataanina aad ay u fara badan tahay. Barnaamijkan waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdikariin Olala. Waxaynu ku eegi doonaa socdaallada iyo waxbarashooyinka deegaanada inagoo maanta ku soo qaadan doona magaalada Tuulo-Samakaab. waa iskuul oo saddex ah wuxuu ka kooban yahay 5 galaas. 5 galaas oo kooban yahay galaaska shanaad galaaska koowaad waa eegi maaha waxay ka kooban yihiin 183 arday labada keli oo dhigta runtiina waa iskuul dayar ku jiray 5 sano hadda iskuulka iyo wax ku baranay maantana waa iskuulka ka muuqda gobolka iskuulkana runtii wax badanna waa loo qabtay wax badanna waa hartay Qarsay dhibaatooyinka ugu badan hadda isku ugu badan haysto waa deyr la'aan galaasyada iskuulka ugu yar waa 3 galaas kaliya oo la u baahan in galaasyada loo kordhiyo hadda qaybtan dambe annaga ayaa dhisano furantari baan ku dhisano waa bakhaar dawladda raashinka ay noo dhigtay iyo jikadii ay dhaheen waxba lagu karnayaa annagu aan dhisanay dadna uma hayno waxaana ku keenay tabartayada dadkan annaga qodanay waxaana noo filisay markii dambe jaanada jaacsiyaad ayuu barkadan iyo labadaas suuriga qashinka waxa samaysay UNICEF iskuulka waxa dhisay intiisa kale hay'adan Save Children yiraahdo ka dhibaatada ugu faraha badan hadda idan haystaa waa deyr ugu faraha badan in haysta hadda iskuulku waan dhayn lahayn dhibka ugu badan in haysta waxa way deyr la'aan xagga deyr iyo galaasyada celiya stored usan lahayn iskuulku hadda baahida noogu daran laakiin waa deyrka maadaama aan ardayda xakamayn karin ardayda aan la xakamayn karin aan dhir lagu beeri karin uusan safe ahayn meeshii waxay iska soo galayaan adiga ciyaalka iska imanayaan ay dhagax tuurayaan shaqaalaha waardiyaashuna mushaharna ma qaataan cidna mushaar furantar bay ku joogaan ardaydana waxba kama qaado dad reer miyi ma ku jiraan xooluhu ka dhamaadeen way badankoodu waa xoolaha ka dhamaadeen waa gartay reer miyiga soo xarooda magaalada hore ma ay waxa sax dadkani waa dadkii xooluhu ka dhamaadeen soo abaartu sideedii saameysay ardayda aad iyo hadda geelaanta waxa noogu daran waa geelaan oo iskuulka biyaan jiray hadda bakadana waa marartahay kana wax yar baan dhaweyd baa ku shubnay ardayda markii waa foqsanaya hadda waa taasay biyaha cabayaan waxay qubaan iyo waxay cabaan bay ka dhigayaan marka